ciidamadii huwantahaa iyo diyaaradahoodii iswato yaa waxay soo galeen magaalada Baydhabo meel aanan la ogeyn oon qorshaysnayn ee magaalada ka soo galeen meeshii laga sugaayay annagu ciidanka annagu wuxuu joogay Burujet meel la yiraahdo oo 10 kilomitir 12 kilomitir u jirta magaalada mana rabin in dadka dhexdiisa lagu dagaalamo oo dagaalkaas ciidan waxay isku gaarsiyaan maahane qof shacab ah annaga oo qadiyadaanada difaacayna inuu ku dhinto iima qorshaysnayn sidaas darteeda markii ciidamadii diyaaradii weyneyd oo u duqeynaysay meelaha ay soo marayaan ama sahan ku ahayd yaa subaxi waaga markuu baryay waxay sawirtay ciidankaanagi koonfur galbeed oo ilaa iyo 3 raac difaac ku jiro raaca koowaad Burujeedka meel saldhig horay u ahayd oo aan hadda ka hor shabaab kula dagaalanay waan ka bixinay oo dadka badan looga diri jiray raaca labaad isla Burujeedka agtiisa meel ahayd kan saddexaad waa ku xigay kan afraad oo ugu dambeeyay yaa wuxuu ahaa Maayfuulka diyaaradda sahminaysay oo sawirtay ciidankii qof u sawirtay waxayna u sheegtay meeshaan inaysan mari karin ciidankan hadday inta maraan hal qofna uusan Baydhabo tagayn annagana qorshaha wuxuu ahaa xitaa shacabka inaysan xabad maqlin in la dagaalamayo bas inay ogaadaan hadday maqlaanna inay waxba soo gaarin qorshahaas yaa markiiba diyaaradii yaa sawirtay way sheegtay isla markiiba jidkii ka leexdeen meel magaalada u dhow oo la yiraaho Abu Casharow ay ka soo galeen markay soo galeen saraakiisha ciidamadii waa report gareeyeen waxay yiraahdeen intaas noo jirtaa waxaan ku yiri haddii ay magaalada soo galeen oo Abu Casharowba ciidankii uu joogo xabadda baan maqalnay waxaan qabaa ciidamada dib uga baxeen inaan dagaal gelin saraakiisha ilaa waa dagaalamayna yiraahdeen ma la dagaalamayaan dhah sababta aan u irina waxa weeye dadka magaalada Baydhabo jooga 1,300,000 oo kun oo qof ku nool magaalada Baydhabo dhagax kor loo tuuro dhul ma dhacay qof bini'aadan ku dhacay xabadii la ridana weeftadana daday ku dhacaysaa niman burcad ah oo qoladan sahan u ahayd oo awalba uu madaxweynaha meesha ku abaabulay oo looga warqabay oo mishaar lagu siinayo oo loogu talagalay annaga in qabadna looga dhigo yaa subax oo dagaal ka dhacay magaalada gudaheeda ay jidad xireen oo diideen in la isu socdo yaa waxay ahayd 5 saacadood ay socotay 5 saacadood xabad kasto kor loo rido ama qof bini'aadan ku dhacdaa ama ku ag dhacdaa tiiban marka yaan shalay ka qabnay maana doonin magaalada dhexdeeda lagu dagaalamo sidaas darteed ciidanka saraakiishi waa ku qanci waayeen ilaa barasharan ku saaray in ciidanka la soo bixiyo nabad uu ku soo baxo ay soo galaan nimankan haddana mar labaad waxay soo jeedeen hadduu ciidanka soo baxay annaga magaaladan soo galaynaa Burujeedka ciidanka joogay dib baa loo soo qaaday magaalada la keenay gaadiidkii iyo tiknikadii magaaladii soo galeen waxay dhahan haddana magaaladan ku dagaalamaynaa war waxaan diidayabo waa magaalo lagu dagaalamo annaga burcad ma nihin dowlad baan nahay dadkaanaan ka naxaynaa marka dadkaanagi inay micno la'aan ku dhammaadaan ma rabno in la yiraaho waagii dagaalkii baana intaasoo qof ku dhimatayna inay taariikhda ay gasho oo dhiig ugu daato ma rabo dadkan waa dadkaygii waa ka naxaya oo xasan dadkan kama naxayo kuwii asaga ehelkiisa ahaa uu ka nixi waayey oo siinay uu ku baabi'inayo oo ku duduminayay marka nin aanan ku naxaynin haddii aad ku dayatid oo waxa lagu kor dagaalamayana dadkaada ay noqdaan horta dameer xumo yaan u arkay saas darteed baana ku amray ciidankii isla markiiba waa soo aruursadeen magaalada qayb ka mid ah oo ciidamada xarumo u ahaa ay deganaan jireen ay degeen waa joognay talada aan siiyey waxay ahayd goobo cayiman oo adinka aad leedihiin dega meeshiinaas deganaada aan aragno ha yimaadeen magaaladan nin duulaan ahoo ku yimid ugub ma aha cuseybna ma aha weligeeda imaan jirta si xunuuna ku tegi jiray marka sidii bay noqonaysaaye waxbo ayadoonan cidna waxba gaarin iyayna dhaafi doonaan xarumihiina dega sidaas darteedaan marka u soo baxay aniga oo u turaayo
deegaanka iyo dadka iyo wixii aan 7 sano ka soo shaqeynayo oo horumar ahaa iyo wixii aan ka soo shaqeynayo 7 sano oo mashaariic ahaa iyo wixii aan 7 sano nolol ahaan soo suubiyay oo qurux ah yaan ana u turaayo yaan ku soo baxay laakiin ciidamadii iyo aan intaas dhisaynay tiradooda hadda aniga kuma sheegayo intaas sheegtayna ma aha ciidanka koonfur galbeed oo meel walba joogaa baydhabo kaliix ma aha waana ciidamadaanadii oo weli haddaba sidii bay u shaqaynayaan laakiin bixitaanka inaan baydhabo lagu dagaalamin ah ma ahan in ciidan la waayey ma ahan in la baqay ma aha in hub la waayey weliba waxaan aaminsanahay haddii la dagaalamo maalin ka badan ma la dagaalameen ayagana may soo galeen baydhabo laakiin waxaan diidayaa taariikhda maalintaas baydhabo lagu dagaalamay qofka qaxay kan dhaawacmay kan dhintay inay ii gasho intaas intaan ku soo baxay